Soomaalidu waxa ay muddo dheer ay ahayd dad lagu xanto ama lagu yaqaano inay aqoon dheer u leeyihiin xoolaha iyo dhaqankooda, sidoo kalena ay u leeyihiin aqoon fiican hilibka karintiisa iyo caanahaba. Maadaama muddo dheer Soomaalidu ay xoolo dhaqato ahayd, ilaa haddana xoolo badan ay leeyihiin, isla markaana mararka qaarkood ay dadku ku noolaayeen hilib iyo caano keliya. Haddaba sidaad ka arkayso muuqaal dhaqaaqan, waxaad dareemaysaa Soomaalida in lagaga fiican yahay karinta hilibka, hadday noqoto hilibka xaniidka ah, iyo hadday noqoto ka barbecue-ga, iyo hadday noqoto ka kariska falfalka ah. Intaba Soomaalida waxaad moodaa inay kaga fiican yihiin ajaanibta, ay ka mid yihiin Carabta, Turkida, Hindida. Iminka bal eeg hilibkan sida loo diyaariyey, xataa lafuhu xabad hilibi kuma dhegsanaanayo. Marka hilibku bislaado laftaa la siibayaa. Soomaalidana hilibku inta badan lafuhu ka raacaaba oo hilibka wada lafa leh ayay daadiyaan. Laakiinse imika halkan waxaa kaaga cad in laga faa'iideeyey hilibkii oo aan haba yaraatee laftii waxba raacin. Xataa laf dhabartii hilibka ugu badan Soomaalida ka raaci jiray, inta la moofeeyey ayaa laftii cad laga dhex saaray. Waa farsamo aad u sarreysa. Soomaalida waa kaga dayata hilib karinta. Ajaanibtan ay ka mid yihiin Carabtu, oo iyaguna ah dad soo jireyna oo muddo aad u dheer ilbaxnimada iyo ku soo jiray ma garanaysaa cunto karinta.